بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داود يلوشوقي قار هي وإذن كي إيماني استوديها يجا مقالة لندن وحيد لسه عتيني أنا جوا عبد الواحد عبد الله خليف وحا إسكسو الدبريدي أو فرسمة النوع هي الأستاذ محي الدين ديريا نور ودني أو جوا كندا برنامج وحو كساب سيهي دربيغا دولة كينيا كدسي حدود كأولحيا صوماليا إيا كينيا موضوعنا ووريس أن لا لنهي لبا أقويهن بدو حلبان صادق عمر ورفاء كان كلنا وأقويهن حسن فيوكا على الدار قال أبو سعد ما قاعد صح والصديق حرسي وي أنا صديق حرسي ورفاء ولا هذا رأي هذا بارك الله فيك وصديق حرسي ورفاء xildhibaanku asagoo dhalin yar buu tegey maraykan wuxuuna ka faa'iidaystay fursaddaas oo waxbuu ku bartay wuxuuna ka mid ahaa dadkii guntiga u gigsaday inay caawiyaan bulshada soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan ilaa uu magaca ka kasbaday heer uu gaaro inuu noqdo xiriiriyaha fagaarayaasha looga doodo arrimaha soomaaliya danta u ah markii madaxa la soo dhoweynayo markii mu'tamaraad la qabsanayo sidoo kale wuxuu u tartamay Minnesota House qaybta sharci dejinta miya iyo sanadka labada midkood haddana waa xildhibaan ka mid ah baarlamaankii tobnaad waxaa kaloo sidoo kale xasan fayooka ma aha markii ugu horreysay wuxuu ku jiraa dadkii wax ka gardaadiyey gaar haye hoos buuna joogaa wuuna maqlayaa hadduu nagu soo biirayaa saan ognahay kenya waxaa degan malaayiin soomaali ah oo sheegta ha sheegteen soomaali kenya iyo dadkeedii kale oo ku soo qaxay oo iyaga laftigooda 1 milyan ka badan qaar waa ganacsato qaar waa qararaf qaar qaxootiga ku jiraan qaar waa iska degan yihiin qaar waxbay ku bartaan sidoo kale hay-adi badan baa hay-adaha ka shaqeeya soomaaliya intooda badan halkaasay degan yihiin waa iyada la yidhaahdo arraa'ib laa yakdibu ahluhu qofka yacni sahmiyaha ah dadkiisa uma been sheego marka labadan aqoon-yahan iyo aniga laftiga oo ku jiray dadka xaqori jiray iyo muxiidiin ma rabno dadka caadifad iyo waxaas inaan ku kicin waxaan rabnaa dantaasaa isugu xiran hawlahaasaa jira xagga kale kenya way ka faa'iidaysanaysaa burburkan soomaalida oo adduunku isuma naxo marka ciidamadeedana waxaad moodaa xoogaa inay shacabkii carinayaan sida hadda ka jirta meelahan ka arkayn baldaxaawo marka waxaa la rabaa yacni analysis aan caadifad ku dhisnayn marka waxaanu ku bilaabi doonaa halhayskii gaar haye oo ahaa gaar haye waa golo ay u gudboon yihiin gacalka soomaaliyeed gees kasta oo adduunka joogaan dowladda guna kama qaadano gacan saarna lama lihin mucaaradka cid gooniyana uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa laakiin danta guud waa mid ciddii gaar haye lagu casuumo sida hadda labadan aqoon-yahan gar bay noogu leeyihiin inaan hadalka ka gurno maadaama aan su'aalo badan garka u gelino laakiin gef iyo garowshiyaba qof walba wuxuu geysto asagay iyaday u gaartay taariikhdan u gelaysaa gabagabada hadalku waa aan ku garowne gaar hayow geyiga ilaali marka walaalayaal sheer gareeya online-kaas weeye waxaa marka aan siinayaa fursadda u horeysa xasan baan yacni soo saarayaa kor saad noo salaamaan labadiinaba soo dhowaada xildhibaanka iyo aqoon-yahanba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhownahay walaal وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan ku bilaabayaa xildhibaanka xildhibaane saan hadda sheegayay kenya hawlahaas asaka ay xiran aad u jeedo qofna inkiri karin dadkeedii hore soomaalidii hore sii deganayd teeni qaxootiga ahayd hay-adihii jooga wax kasta asaka ay xiran dhanka kale militariga waa u jeedaa xoogaa waxaad moodaa inuu shacabka carinayo adigu waxaad ka mid tahay waxaad tahay xogeyaha guud guddiga difaaca yacni golayaasha guddiyada baarlamaanka waxaad ku jirtay wafti halkaas hore u tegey oo xaqiiq raadis ahaa oo indhaha saaray tegey meelaha derbigaas la leeyahay waa laga dhisayaa marka si kooban noogu sheeg waxaad meesha kusoo aragtay soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم أديري مغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سيف عمكم مغلنا runtii aad baan u salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ka daawanaysa walaala saa sheegtay waxa weeye annagoo guddi wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddigeena guddiga difaaca iyo khubaro ayaa tagnay warbixinna waa ka diyaarinay warbixintaasna waa la wadaagnay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka
marka runtii warbixin waxay ahayd technical ah ku saabsan wixii aan soo aragnay marka sidaas ayay ahayd walaal waa tahay marka waxaad soo aragtay xoogaa faahfaahin naga sii waxa indhahay ku soo aragtay maadaama dadku ay warar kala sheegayaan say waxu jiraan khaasatan baral xawo kale maxaad ku soo aragtay derbigu see yahay xaggee laga dhisayaa arrintan waxa weeye waxaa jira dalka Kenya sida la socotid waa dal aan darisnahay marka xuduudda labada dal waxaa ku kala saxiiray gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga bishii July 15 1924 marka waxay ka taageen wax la yiraahdo boundary pillars boundary pillar waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxa la yiraahdaa kudka ama waa geed saan camal u mudan oo ku taagan oo tilmaamaya meesha xadku u mari lahaa marka dalka Kenya hadda meesha siliga ama barbar wire-ka waxa luqadda Ingiriisiga ay dhisayaan geedka annaga aan soo aragno kudkii dhinaca Kenya ayuu ka xigaa laakiin uu ku dhagan yahay oo saas ugu dhagan yahay laakiin dhinacooda ayuu xigaa waxay kaloo qodeen meel ay u talagaleen mindhaa marka hore siliga xiran laakiin god baa la qoday saan qiyaasa godkaas waxay mindhaa loogu talagalay in aasaas derbi laga dhisi doono arrintan marka dowladaha Soomaaliya iyo Kenya way ka wada hadleen labada dowladood sida la socotid marka wadamada adduunka hadda waxay u gudbiyaan in maarata la isku furnaado marka kulli arrintan waa arrin soo noqotay aniga guddigeennii tala ayaanu u soo gudbinay talooyinkaasna kulli dowladdu hadda way fiirinaysaa wixii nooga habboon ayaa la qaadi doonaa dilaa waxaan siinayaa hadda aqoon-yahan xasan fayooke xasan aad baad u kala taqaanaa magaalada iyo deegaankaas sidaan hordhaca ku sheegnay xildhibaankuna xusay waddankan hawlahaasa isaga kan xiran marka shacabkii waa aragtay waxay sheegayaan deegaankii waa taqaanay marka maxaad adiga aad akhrisay ayaamahan arkaysay oo aad dadka ka maqlaysaa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله horta xildhibaanka ma maqlo oo waxaan u maleeyaa cillad farsamo jirta cabdi waaxid adiga un baan ku maqlayaa marka aniga maqalo wad iska wad dhib male marka aniga haddaa maqlayso wax yar sugo xildhibaan adigu hadda ma maqasha asaga anigu waa maqlayaa bas marka isagu waa maqlaa miyaa isagu waa ku maqlaa ha wad marka anigu haddaad i weydiiso guud ahaan waxaan u malaynahayaa haddaad magaalada iyo aagga hadda wax ka socdaan aad iga weydiiso aqoontaan u leeyahay waxaa weeye magaalada buulaxaawo saad la socoto waa magaalo macnaha waxyaalo badan istaraatiiji ku ah xuduudka ay xiriiriso oo Soomaaliya iyo Kenya iyo Etoobiyaba xuduud saddex xagal ah ayaa ku yaala khaasatanna waxa weeye gobolkan la yidhaahdo waqooyi bari iyo Soomaaliya qayb aad u weyn ayay isku xirtaa waxaan u malaynahayaa marka xataa inta badan ceel waaq iyo ceel qaalow yacni ayadaa laysu sii maraa oo macnaha iyadiyo mandheera ayaa laysaga sii gudbaa marka saas daraaddeed magaalada inkasta oo marka loo eego siday awal ahayd ama meeshay ka joogtay degmooyinka gobolka markii la barbar dhigo waxaad mooddaa hoosu dhac weyn baa ku yimid oo sababtuna ay tahay dagaallo badan oo mataqaanaa barakiciyey oo hadday ahaan lahayd Soomaalida dhexdeeda iyo Etoobiya iyo mataqaanaa Soomaaliya intaba marka ayaamihii markii hadda u dambaysay waxaan u malaynahayaa dhowr goor baa madaafiic ay hoysay dhexdeeda lagu dagaalamay marka sidaasay tahay waxaan isleeyahay waa magaalada ugu bogsi dhow marka la eego magaalooyinka macnaha Soomaaliya ay wax ka dhacaan muhiimadda ay leedahay darteed oo ganacsiga iyo xiriirka maxaan ku yidhahdaa labadaa dal ay u leedahay darteed marka maadaama marka mataqaanaa ay magaaladu magaalo ganacsi
iyo macnaha xoolo dhaqato iyo macnaha xuduud maaragtay dhoof iyo soo dejinba xiriira ay lahayd aad baa maaragtay ay u dhismaysay wax kastoo ay colaadu ragaadisayna waxa weeye mar kasta way soo fufaysay hadda waxaad maqlaysaa kolley xildhibaanku wuxuu ka yiri ma maqlaynin oo macnaha dowladda dhaqdhaqaaqeeda ayaamaha ku saabsan laakiin saa la socoto hadda waxa inta badan annaga dhawaaqana soo gaarsiiyey waxay ahayd dadka shacabka ah oo derbigan la dhisahayo macnaha mataqaanaa si toosa uu u taabanayo maxaa yeelay hadda xuduudka soomaaliya hadda xuduudka awalba dowladda ilaalin lahayd meelo badan baana mataqaanaa laga soo galay laakiin waxa hadda ayada dheer waxay ahayd xuduudkan meesha la marinahaya hadda derbiga kan hanti waxaa jirta toos u baaba'aysa oo mataqaanaa dadka macnaha shaksiga ay leeyihiin oo malaayiin gaaraysa oo macnaha waxaa laga hadlahayaa dhowr boqol oo mataqaanaa macnaha guryo oo dhisan oo dadkii mataqaanaa meesha ugu dhowaaday iskuulka inay carruurtu u aadaan darteed maxaan ku yidhaahdaa ayagoo iskuulkii carruurtii u aadayso oo magaaladii u shaqa tagahaya oo meeshii guryo dhistay oo mataqaanaa ayaa subax lagu warhelay derbigii marka in marka dadka ay ku simi weydo labada dowladood inay xuduudka ka wada hadlaan waxaa kalifahayey waxay ahayd middaa tooska ah haddee kolley xildhibaanka iyo markay tageen waxaan u malaynayaa way arkeen marka waxa haddee markasta la isweydiinaya waxa weeye waa runoo dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya hadda xiriiro xasaasi ah oo ballaaran ayay leeyihiin macnaha wanaaggiisa iyo xumaantiisu waa mawduuc kale markii laga hadlahayo marka sidaasay tahay waxaad moodaa dhanka macnaha dowladda kenya in sida hadda uu xildhibaanka iyo macnaha dowladdanadu ay muhiimadda ay siinayso muhiimad la-eg baad waxaad moodaa inaan xagga laga siinaynin macnaha xiriirka iyo waxyaalaha macnaha sensitiveka ah oo macnaha dhibaatada kicin kara xasan waa kusoo noqonaya wax yar sug marka xildhibaane waxaan maqalnay inaad xiriir samayseen ka guddigii difaaca baarlamaanka marka yaad la xiriirteen dowladdii iyo madaxweyne ra-iisul wasaarihi soo far maxaa idin qabsoomay su-aasha kuma maqlina ku soo celi maxaa tiri waxaan maqalnay inaad guddigiinnii difaaca ee baarlamaanka aad shaqo qabsateen ood la xiriirteenba arrimahaas baladxa ku saabsan aad kala hadasheen madaxda dowladda marka yaad aragteen yaad isla soo qaadeen arrimahaas horta waa mahadsan tahay si walaal xasan kuu sheegaba arrintaan anagu talooyin baan soo jeedinay guddigeennii markii aan reportkii aan ka diyaarinay warbixinta aan ka diyaarinay 700 iyo dheeraad weeye guryaha oo meesha ka dhisan horta oo dhinaca kale u gudbay dadku inay ogaadaan baa 700 iyo above waaye markaan leenahay waxyaabaha talooyinkeena soo jeedinay ayaa waxaa ka mid ahayd in xal siyaasad loo helo taas ayaa ka mid ah dadkaas meeshaas degan hantidooda moogtahay in macnaha in waxyaabahan ka wada hadalnay ka mid ahayd dowladda kenya marka arrintan laga hadla waxay tiri annaga waxaan soo dhisaynaa ugu yaqaanaa jayga meeshay ka bilaabato labada custom dhinacaan baan macnaha meel waxa yahda point entry oo ah meel laga soo galo oo dadka customkii idinkaa samaysaas camal ayay leeyihiin 7 kilomitr bay dhinacan sida la sheegay dhinaca dhisaan rabaan ceel waaqna way ka sameeyeen xadka soomaaliya kenya u dhexeeyana 790 kilomitr wey marka haddii intaas derbi lagu xiriiraba kolley muddo dheer bay qaadan doontaa laakiin muhiimadda oo ah waxay tahay annagu talooyinkan soo jeedina wuxuu ah inta laga wada hadlaayo oo wada xaajo laga furaayo oo guddiga farsamada dhinaca in derbiga la joojiyo oo dadkaas arrintaas oo hantidaas faraha badan iyo dadkaas maqanna xal loo helo marka arrimahaas ayaa mataqaanaa laakiin shacabka moogtahay in buraha bulshada laga kiciyo oo wax mataqaanaa dadkii niyaddoodii la kacasho wax hadda faa'iidaa ku jirta male kenya waa waddan sovereign ah waa waddan xor ah annagana waxaan nahay waddan sovereign ah xaq waxay u leeyihiin securitygood amnigooda sida annaga securitygan amnigeena xaq ugu leenahay
muhiimadda laakiin waxa weeye wada noolaanshahaas waxa keenay in derbiga la dhisana waa garan kartaa 2015 wixii ka dhacay Gaarisa iskuulkii jaamacaddii wixii ka dhacay waa garan kartaa marka muhiimadda waxay tahay waxa weeye in annaga aan wada si wada jira aan uga wada dagaalanno mataqaanaa hade macnaha nabadda ka wada shaqeyno waddan walba nabaddiisa iyo nabadda gobolkaba Kenya xaq bay u leedahay inay ay shacabkeeda iyo dadkeeda ay nabad iyo security-gooda ka shaqeyso sida annaga Soomaali xaq u leenahay inaan security-geena iyo nabaddeena ka shaqeyno laakiin shacabku waxaan dhihi lahaa waa dowladdeena ku kalsoonaada arrintan arrin wada hadal laga galaayo waaye derbigan hadda la sheegayana hadda anagu answaarna wuu jiraa laakiin labada dowlad wada hadal bay ka geli doonaan xal baa loo heli doonaa hadda Africa oo isku furan baa laga fikirayaa laakiin inay u dulqaataan oo shacabku ay ku kalsoonaan dowladooda taas ay muhiim ah marka in hoos laga xariiqo wuuna ku sheegay Xasan waa ku saxan yahay in dad badan oo hantidooda dhinac kala jirto waana sheegnay reportkani ku qoran tahay 700 iyo guri ka badan way dadkaas aniga sida loola dhaqmi lahaa reportkani ku qoran yahay dowladda Soomaaliya hadda hooshii way ku jirtaa xukuumadda meesha ku maqaamkii madaxweynaha ayaa ka wada hadlay marka shacabku waxaan leeyahay inay isdejiyaan meelaha bulshada waxaan ku arkayaa waxyaabo iska ordaayo oo dadkii marka inay hadallada qofku dhahayo inay miisaaman yihiin oo mataqaanaa dowladda inay hawshan ku jirto intaas ayaan shacabka la wadaagi lahaa iyo daawadaashaadaba xildhibaan warfaayow kuma maqla xasan markii ugu dambeysay kuma maqlayn marka israacso anaa u gudbinaya yaa iska aragteen marka dowladdii guddigiinnii yaad aragteen dhowaanahan inta arrintan hadda balad xaawo soo laba kaclaysay yaa madaxda dowladda ka aragteen oo arrinta kala hadasheen waxaan kala hadalnay ra-iisul wasaaraha ayaan 2 habeen ka hor arrintan kala hadalnay ra-iisul wasaarahana markii ayuu wasiirkii arrimaha dibadda u yeeray iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo guddigeena wada fariisanay aan ka wada hadalnay talaabooyinkii la qaadi lahaa iyo sida Soomaaliya u jawaabi lahayd dowladdu marka commission mataqaanaa oo labada dhinac la sameeyo in mataqaanaa khubaro labada dhinac la keeno in mataqaanaa meel wax isla dhigno taasaa muhiim ah marka arrintaa markaan ku leenahay xal siyaasi lagu dhameeyo waxaa ka mid ah dadkaas shacabka Soomaaliyeed oo kudka baalkaas boundary builder dhinac kale ka maray in mataqaanaa xal loo helo marka dadkan waa dad kala go'ay ma shacabka Mandheera iyo shacabka degan Balxa waa shacab Soomaaliyeed labadaba marka iskuulada uu ku sheegay iskuulada dhinac ka aadaan ka shaqeystaan marka in waxaan xal siyaasad lagu dhameeyay aakhir noqon doontaa marka dowladuna way ku jirtaa ku kalsoonaada laakiin in mataqaanaa baraha bulshada iyo meelaha wax la mariyo wax hadda faa'iido keenaysa male dowladdan way ka go'an tahay in ay dhulkeeda difaacato intii awoodeeda meel waxyaabo loo maraa jirta haddana dadka shacabka yaan la kicinin ha laga shaqeeyo sidii xaaladda loo dejin lahaa oo dowladda janaalada ay legal channelka meelaha shuruucda ay marayso in waqti la siiyo ayaan ka codsan lahaa shacabka Soomaaliyeed xasanow xildhibaanku suu sheegayo wuxuu ka hadlay guryihii cabirku uu leeyahay waa qabtay oo laga baqay in la dumiyo iskuulada hawlaha isku xiran buu cabaar ka sheekeeyey wuxuu kaloo ka hadlay inay madaxdii qaranka sida ra'iisul wasaaraha ay la kulmeen ka guddi ahaan guddiga difaaca baarlamaanka hawl fiican buu qabsada marka hawshan hadda xildhibaanku hayo iyo guddigaas iyo waraysi aan ka fiirsaday telefishan caan ah sida xildhibaanku u hadlayey hadday madaxda u saraysa waddanka ay dadka saa ula hadli lahaayeen wax badan bay dejin lahaayeen marka xasanow waad maqlaysay ayaantii maraykan xataa meeshii la oran jiray Charlottesville markii qof cunsuri uu ku dilay qof caadiya dadka caadiga ahaa oo mudaharaadiyay waa tii Trump 4 saac kaliya asagoo aamusnaa wixii lagu dhigay xasanow waxaad kaloo og tahay aqalka cad iyo madaxtooyaasha iyo xafiisyada ra'iisul wasaarayaasha afhayeen bay leeyihiin marka sida hadda xildhibaanka iyo u hadlayaan oo tartiibta iyo xataa dowladda xataa tan ugu jirto oo shacabkii qancinaysa oo xiriirkii labada wadanba xataa kobcinaysa maxaa madaxda ugu saraysa ayagu saas oo kale ugu hadli waayeen oo mar horeba u hadli waayeen xasan ku soo dhawow عفوا كل باي وصل قلي اوكي واي مقشي سوما سؤاشا
ها سوق المركب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحوي هرتا هذا سؤال شاس وحنا ملينا هي عدي كجوابي لهيد وحين نقول لهيد مدحض لفت هذا وهذا أنو متقنا سببتي وجوابي لهايين وحنا ملين لكن واحد كود دابان ملينا هي ما هبونتها هي إني كجوابان ما هبونيد أو معناها هالكاس ولتش دابان في لهيا دعوا وي هبونيد جوابته وليبا خصم ما أهن إن ورباهنتا لقى قدبية لكن waxa lagu khasban yahay oo laga maarmaanka ah oo hadii aan la sameyn khatarteeda wax weeye madaxda arintu khusayso iyo dadka dhibanaha ah oo wixii ay taabanayaan inay xiriir lahayn taas weeye waxa loo baahan yahay in marka la xaqiijiyo in xiriirkaasi jiro oo wixii ay ugu maqan yihiin iyo wixii gar ah oo ay hayaan oo ka reebahaya macnaha in ay wax ka qabtaan iyo markay dadka meesha jooga iyo maamulkooda ayay waxay ahayd inay kala hadlaan marka haddii taas u dhici lahaydna waxaan u malaynayaa warkan badan oo meediyada mataqaana ay shacabku macnaha iyo dagaalkan aragnay oo ay kula jiraan maxaa hayto cagafyada xaqiiqatan waxa weeye hadda waxa uun arrintu taagan tahay wixii soo kordha iyo dadaalka hadda xildhibaanku sheegay waa rajaynaynaa inay khayr dhaliso laakiin uun hadda waxa arrintu ka dhaxaysa ma aha laba dowladood waa cagafyada iyo kambaniga mataqaanaa hawsha fulinahaya iyo dadkii mataqaanaa hantidoodii ay meesha taallay waxaan u malaynayaa marka in saa loo fahmay inay tahay in marka labadii dowladood haddii dadkoodii ay mataqaanaa sa isku si toosa ay isu taabtaan oo macnaha faraha la isla galo haddee sida la arki jiray laba dowladood ayagiibaa isu imaanaya hadhow faraha isla geli doona marka waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo laga hortagaa taasay ahayd waxaan ka baqahayaa halkan faarax macalin baa ka sheegay hadda ka hor oo macnaha markay timaado kenya iyo xagga maraha musuq maasuqa in mararka qaarkood waxyaala istaraatiiji ah oo kenya macnaha ama siyaasaddeeda arrimaha dibadda ha noqoto ama maxaan ku yidhaahdaa istaraatiijiyadeeda dagaal ha noqoto wax khuseeya oo laga yaabo macnaha in ay sababto dan group ama shaksi uu leeyahay oo mataqaanaa hadda marka derbigan waxaa laga yaabaa kambanigii in uu macnaha dhammaystiro oo waktigii mataqaanaa iyo wax ku tacalluqa lacagtii la siin lahaa iyo kondishino saasa waana sahlan tahay marka in macnaha maamulka maxalliga ah oo kenya oo kale la yidhaahdo maxaan ku yidhaahdaa iyo kambanigu ay toos isku afkartaan hawshaa in deg deg loo dhammeeyo marka haddayna taa ahayn haddee waxa weeye oo ay tahay wax dowladda kenya ay si rasmiya u waddo waxaa u dhigmo oo ay tahay inay mataqaanaa mas-uuliyadda ay xagganaga toos u fuulaysaa waxay ahayd dowladda macnaha iyo mas-uuliyiinta marka waxaan rajaynayaa aan kaga gaabsanno in macnaha hawshaas inaan loo sinayn oo macnaha hawshii dowladda ay tahay mar haddii xuduud iyo laba dowladood ay tahay dadkaana waxa ku kallifahaya hadda inay gacmahooda arrinta ku qaataan ay tahay hantidoodii oo meesha ku burburaysa oo macnaha ay ka cabsi qabaan marka anigoo sadiiq mataqaanaa runtii og nin macnaha lagu bartay arrimaha maaragtay soomaalida inuu u dhaqdhaqaaqo iyo dadka danyarta iyo macnaha aanan hadda mataqaanaa aanan xaggiisa anigu saluugma saarayn iyo guddigiisa laakiin waxa weeye haddee natiijaday u dhuranaysaa aakhirka oo haddii mataqaanaa wixii aysan natiijadii la rabay aan la qaban macnaha hadalku ma dhammaanayo marka waxaan rajaynaynaa in macnaha mataqaanaa dadkaas si deg dega loogu gurmado oo maxaan ku yidhaahdaa xabad joojin ama dhiig joojin waxaad ku tilmaantaba in mataqaanaa horta hawshu joogsato oo dadkaa hantidooda la badbaadiyey marka ugu horreysa markay dadkaasu helaan markay dadkaasi ay helaan ballanqaad inay macnaha hawshii lagu jiro ayna joogsato oo practical ay u joogsato waa tahay xasanow waa kaa dhexgelayaa daawadayaal weli waxaan ku jirnaa
barnaamijkii showgii gaar haye oo idinkaga imaanayey stuudiyahayaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif waxaa farsamadaya noo haya al-ustaad muxiidiin diriye nuur wadani oo canada jooga marka waxaan usoo noqonayaa xildhibaanka oo aad u daala runtii howlo badan baa u yaal waktigan uu joogana waa aragtaan xildhibaane waad garanaysaa dadka soomaaliyeed si ay dowladda u soo dhaweynay madaxweynaha meel kasta calama looga raxay waa loo mashxaraday marka ogaa waxaad moodaa marka akhbaartii inay la daaheen way dhici kartaa in ayagu leeyihiin aamuskaa wax ku jira si kale laakiin waxaad moodaa akhbaartii markay la daaheen dadweynihii xataa baradaxa waa hadleen ciidamadii qaar baa caadifad qaaday oo hadloo yidhi waa dagaalamaynaa heer waxaa jira guddoomiyihii gobolka gedo maxamed aadan asagu wuxuuba leeyahay dowladdiiba aniga ii xil saartay inaan dowladda kenya kala hadlo marka sida adigu sheegtay akhbaarta adaa haya saxda ah oo labadii madaxweyne waa xiriireen arrintana way ka hadlayaan hoos bay uga hadlayaan marka kala hadalkan soo dowladdii ma dhibayo maaragtay kala hadlidan maadaama aan arrintii lasoo daabicin maasha allah horta xasan waa nin wax badan koog meesha uu ka hadlayn horta midaan in hoos laga xariiqa arrimaha xuduudaha waxay u taalaa dowladda federaalka arrimaha xuduudaha arrimaha dibadda jinsiyadda iyo mataqaanaa iyo waa arrimo mataqaanaa exclusively dowladda federaalku leedahay marka waxaan ka codsan lahaa in dowladda federaalka looga dambeeyo waxyaabaha ay xaq u leedahay oo taas ka mid ah dowladduna hadda waa dadaalaysaayo wasaaradda arrimaha dibadda hoosh waa ku jirtaa maanta statementii soo saareen in madaxweynu kala hadleen laakiin annagana reportkeenni waa ku jirtay haddana waa ku celinaynaa in xabad waa usuu sheegay in la joojiyo mataqaanaa inta xal laga gaarayo hadda maaragtay marka dhiig joojintay noqonaysaa in macnaha la joojiyo hawt lagu sameeyo maxaa la dhahaa constructionka of the world ka socda taas waa isku raacsannahay marka shacabkuna waxaa muhiima inay ogaadaan maaragtay inay ku kalsoonaadaan oo waxaan waxa weeye dowladda soomaaliya waa dowlad hadda soo kabanaysa oo inay nabadda iyadoo ku noolaato deriska nabad kula noolaato way ka go-an tahay marka shacabku waxaan dhihi lahaa xoogaa dulqaada hala muujiyo arrintan kulley mar haddii maqaamka ugu sarreeya labada madaxweyne ay ka wada hadleen wax meesha dhiman ma jiraan marka hadda waxaana lagu amray kulley wasaaradda arrimaha dibadda dhinaceena inay dhaqsaba sida ugu dhaqsaha badanba ay wasaaradda arrimaha dibadda kenya iyo ay meel dhigaan guddigii wadajirka ahaa isku dhafka ahaa oo ka shaqayn lahaa iyo khubradii meesha tegi lahayd in arrintaa marka xal waara laga helo marka shacabku waxaan dhihi lahaa tabarteenna iyo wixii aan awood leenahay oo dalkeena ku difaacnayna laakiin hadda heerkaas ma gaarsiisana marka hala samro oo mataqaanaa waxaan ku rajaynaynaa mataqaanaa in outcome fiican ay ka soo baxo haddii ilaaha idmo marka wad may socowal i weydiiye xasan saad maqlihii su-aashaan weydiiyey xildhibaanku wuxuu kusii daray arrin kale oo macquula oo xaaladda tabarteenna iyo awooddeenna marka ma la dhihi karaa aamuskan madaxda waxaa la dhihi karaa hadalkii soomaalida odhan jirtay nin reere u weyn iyo maya xasan baan ku jeedaya hadda xasan baan su-aasha weydiinaya ma la dhihi karaa xasanow aamuska dowladdu waxa ma la dhihi karaa nin reere u weyn iyo umulusuba say waxay og yihiin uma sheegaanoo waxay og yihiin awooddeenna iyo tabarteenna oo hadday iska qayliyaan ciidankeenu nisaan yahay shacabka oo kale lama noqonayaan waxa u fiican inay yani ictiraafka haystaan isticmaalaan oo diblomaasiyad oo qofka markii tartiib loola hadlo yani wax maqlayaa oo marka madaxweynihii kenya ku maqan yihiin marka saa ma loogu garaabi karaa xasanow aamuskooda maya horta anigu waxaan filayaa inay fahamto anigu hadal ma daba joogo sidaydaba oo waxa weeye arrintan hadal uma baahna maya anaa ku weydiina shacabkaan matalaya ha marka madaxweyne iyo wasiir iyo kulli hadalkooda publiga ahi arrinta hadduuna joojinaynin oo dadka hantidoodii badbaadinaynin iyo wixii meesha ka socday wax laga dalbadaa ma jiro waxaan laga dalbanayaa waxa weeye wax natiijo dhala ay mataqaanaa dadkii waxoodii ku badbaadaan
weeye waxa la dalbanahayaaye hadalku macnaha muhiim maaha waxa weeye haddii ficilkii uu jiro natiijada xukumi doonto oo mataqaanaa waa u daynaynaa laakiin macnaha muu hadladaas anigu hadda wax hadda iga dhegan ma jirto oo macnaha waxa weeye laakiin waa in wax la qabto oo macnaha hawshii mataqaanaa laga hortago dadka dhibkii ku dhacayay ama macnaha dariiq mataqaanaa soomaaliya iskeed ay uga hortagaysa ha noqoto ama in dowladda kenya lagu qanciyo ha noqoto mar kastana waxa weeye anigu kuma talinhayo dagaal oo unnecessary ah dagaal macnaha dagaal lagama maarmaan ah dagaal aan lagama maarmaan ahayn macnaha looma baahna wax lagu xallin karo macnaha wada hadalna looma baahna in mataqaanaa lagu dagaalamo wax hoos loo xallin karana in kor looga hadlo looma baahna marka laakiin waxa keliyahoo ay u dhuranaysaa natiijada meesha ka soo baxaysa oo ah dadkii macnaha baldoos baa kor taagan meeshaana hanti culus iyo mataqaanaa baa gashay iskuulladii iyo noloshii caadiga ahayd waa horay ka baxeen oo dhismahaanu intuu hadda uu ku socday marka taas way wax laga hadlahayaa laakiin hadalkan macnaha muhadladaan waayahan aad baa waxyaalo kale lagu haystay inay ka hadlaan laakiin tanu hadda ficil bay u baahan tahay waa ficilka wax la dalbahaya baan u malaynayaa sadiiq hadda siduu sheegayna intaasoo laga sii xoojiyo bay noqonaysaa insha allah waa tahay daawadayaal waxaan ku jirnaa gabagabadii xildhibaanka aad buu daalaya waa ujeedaan marka waa iska soo gabagabaynaynaa mid hal su'aala oo kaftanaya mid kaloo raacsan baan siinaynaa يعني xildhibaan sadiiq warfaa saa la socotay horta adigu waxaad moodaa waxaaba ku fiicnaan lahayd madaxtooyada inaad la shaqaysid oo afhayeen iyo u noqotid ama wasiirka warbaahinta oo kale hawlahaasaad wax badan baa ka anfici lahayd taas waa mid tan kale xildhibaanadiinii baan kusoo xiraynaa marka waa tii beryahan xoogaa la ishaysay bal xaggee wax idiin marayaan maxaar jajab baa ku dhammaynaysaan ma cod baa dhacay taasaan kusoo xiraynaa bal arrintaas xoogaa dadweynaha oo ka baxsan mawduucan bal xoogaa naga shaafi horta waan kaaga mahad celinayaa inaa ummadda aada la wadaagaysa macluumaadka aniga horta dowladdu waa wadanahay ogow baarlamaanku waa hay-adda ugu sarreysa dalka nimanku macnaha markii aan ansixinay xukuumadda ayaan qayb ka mid ah awooddeenii siinay oo inay arrimihii aan u wakiilanay ay noo qabtaan annagana waxaa noo hartay inaan kula xisaabtano accountability-gii baa helay oversight-kii marka baashaan doonta waa ku wada jirnaa marka waxa weeye wixii waddanka ka hagaagana dhammaan bay noo wada hagaageen horta taasna in shacabku ogaadaan waxa weeye dowladdan maaha waa hal qof hal shaksi ah kulli waa wada leenahay hadday hagaagto anigu shacabkaas baan garab taaganahay iyaga ayaan matelnaa shacabka hadda beled xaawo degan iyo shacabka soomaaliya xuduudaha degan dhammaantood inay dowladoodu ay awood u leedahay inay xudkeeda aan lagu soo qaldamin waa sharaftii dhammaan ciisadii aan dhammaan raadinayna wey taasna waxay ku imaan kartaa marka in hadda waxa noo yaalla aan adkaysano wey macnaa taasaa muhiima in hadda waxa noo yaalla adkaysano haddaad su-aashaada usoo noqdo ahayd arrimaha siyaasadda hadda ka jira dalku wuxuu leeyahay qawaaniin buu leeyahay dastuur buu leeyahay annagu xeer hoosaad baan leenahay insha allahu tacaala marka arrinta aad ka sharqamisay waa arrin maaragtay golaha shacabka u taalla xildhibaano ayaa ka keenay mooshin guddoomiyaha ka keenay haddana guddoomiyihii ku-xigeen koowaad ayaa kusimo ah marka processkaas ayaa bilaabmaya anigu processkaan aaminsanahay iyo dastuurkaas iyo qawaaniintaas aan ugu kala baxayaa kalsooni weyn ayaan ku qabaa hay-adaha dawliga ayaa hara qofka shaksi ugu yimaada buu baxaa marka taasaan kugu soo gabagabeynaya taasaa muhiima anagu dowladnimada inaan adkaysano shacabka soomaaliyeed baled xaawo inaan garab taaganahay oo baarlamaankooda ogyahay arrinta qadiyadan looga hadli doono mar walbana aan xukuumadda aan kolley ku riixi doono waqti dambe ayay ahayd markaan u tegayna guddigeena difaaca ra-iisul wasaaraha marka muhiimadda arrinta aan leedahay baa noo keenaysa marka aad baan idin salaamayaa adiyo xasan barnaamijka runtii aad buu u fiican yahay meesha ha laga wado marka aad baan idin salaamaya marka igana raali ahaada xoogaa waqti dambe ay tahay marka waa subaxiina shaqaal gara waay waa soo gabagabaynaynaa aad baan kaa mahad celinaa xasan adigana su-aasha aan ku weydiin isu kaa raacayna waxa weeye saa la socotid danihii hadda isku xirnaa waa sheegay marka waa iyada la dhaho xasanow nin guri dhalaa ku jira dhagax ma tuuro marka kenya
haddii ciidamadeedu juqjuqaynta nagu wadaan waa iloobaynaa soomaha waxa ganacsigaasi waxaasoo awalba dad badan baa ka soo qaxay waddankeennii marka faa'iido uguma jirto haddii hadda ay kenyaatigu joojin waayaan juqjuqayntan in anagu nin yani qof qoyan biyo iskama dhowraa la oran jiray taas waa mid tan kale dhibtaanba waxaa noo keenay dib u heshiisiin la'aantan marka ma kula tahay saa anigoo marka wax qori jiray aan soo jeeday dowladda markii la doortay in shabaabka ay wadahadal la galaan wadahadal toosa oo xabad joojin oo kale ah iyo marka labadaas arrimood ka waran حسن ما نمغشى واحد من فروس نقضي بس بتريقة وكذا عمل حلوانة وانا مغشى ادو سماهن ادو ما بس ادو ما سنت ادو دار المركا واسكهر دعوها لكن اسبوعية سو سعودي مالما سو سعودا ان شاء الله وددك هور imaanaysa oo siinaysa akhbaar fiican oo waafiya waqti intaan ka soo horeeyay marka khayr allah ku siyaad ba u maasan tahay dadweynahana waxaan leenahay khayr allah in siyaad ba u maasantii shargareeyana xildhibaan waxa weeyaan yani sadiiq warfaa oo ka mid ah guddiga difaaca guddiyada baarlamaanka caawana isagoo shirar ka soo baxay barina shaqale aan soo jiidno nirkaalay dadkaaga hor imow wuxuuna nagu ixtiraamay qurbo joogtii la isla ahay saas marka aad buu maadsay marka aad baan kaaga macdaleynaa adiga dadweynaha waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh